السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أصحابتكم حرن ويب سايت كي جنرال كدكسي أونلاين كورسز كسودو هذا فيديو عصب. فيديو أنا وحن ستة صحاب بلامنا إن ديسنا بروجكتي ذينا رياكت أو هذا قديم أنكم لنا إن بلامنا سيريس وحرجينا يا 10 كودن بي أنا كجهل ليني تولز كلو تلقى رياكت أنت هذا بلامن كور إن سو فيرستي أو كمبيوتر كاكوس وسط أو جرستي وات إيفر كمبيوتر استعمال شو ماك أما ويندو أما لينكس محو هذا waxaan tegaynaa terminalka ama cmd wixii markaas aad heli karto for now terminal ayuu yaqaanaa maga so meeshaan waxaad tegi doonaa marka waxaad iska hubinaysaa in node aad si sax ugu shubatay iyo npm labadaba waxaa dhihi doonaa node -v wuxuu ii sheegi doonaa versionka aad isticmaalayo for now saa ujeedid version 16.13.2 aan isticmaalaa sidoo kale npm ka asigana haddaa fiiriso again npm ka asigana saa ujeedid waxaan isticmaalayaa version 8.1 so intaan markii aad taagan tahay everything waa okay waxaa si toos u bilaabi kartaa marka inaad generate gareyso codeka react multiple ways loo isticmaalaa iyadoo loo marayo cdn oo content delivery network ayaa ku isticmaali kartaa laakiin for now ma isticmaali doono waxaan si toos u isticmaali doonaa tool la yiraahdo create react app oo loogu talagalay inuu ku generate gareeyo react oo diyaarsan then adiga aad dhismahaaga ama barnaamijkaaga ama projectkaaga ku bilaabi karto si aad u sameyso marka arigaas waxaan isticmaali doonaa waxa la yiraahdo mbx oo mbm awal isticmaal jiray for now mbx la isticmaalaa maalmahan dambe ama sanadihii dambe si general aan u isticmaali doonaa waxaa dhihi doonaa marka mbm toolka waxaa la yiraahdaa create dash react dash app wax space ma jiro dhammaan waa isku wada xiraysaa alright create react aad markaa dhacdo then waxaa lagu dhihi doonaa waxaa laga rabi doonaa folderka magaciisa for now waxaa dhihi doonaa my app everything meeshaad joogto tusaale aan hadda meesheeda taaganahay folderka aragta tagi kartaa sidoo kale waxaan sameyn karaa tusaale inaan tago folderskayga let's say cd documentisk inaan tago then aan dhaho mbx meeshaan aan ku develop gareynaa let's say mbx create dash react dash app space application kaaga magaciisa my react something like that so install adii doontaa ama enter wuxuu aadi doonaa internetka wuxuu ku install gareyn doonaa dependencies aad u baahan tahay inaad ku rangareyso react application sida react router react dom react oo marka ugu horeyso framework ama library ah then react dom react scripts iyo templates ku diyaari doonaa so wuxuu qaadan doonaa waqti waxay ku xiran tahay internetkaaga speedkiisa sida uu yahay haddii aad haysto internet speedkiisa uu fiican yahay maybe in waqti yar uu qaato laakiin waxaa dhowr daqiiqo u qaadan doonaa insha allah markuu dhameeyo ayaan isku soo laaban doonaa hadduu ilaahay karaan noqdo alright so waa uu dhameeyey marka installationkii waxaan rajeynayaa in waqti uu qaatay depending on internetkaaga ku xiran tahay hadba siduu speedkiisa yahay for now marka saa ujeedid waa uu install gareeyey meelaan waxaa lagu siinayaa commands oo ay yihiin si aad project u bilowdo developmentkiisa npm start npm run build markii aad dhameyso waxaana waa ka hadlaynaa for now aan fiirino marka inay wuxuu ku leeyahay waxaad tagtaa folderkaaga aad samaystay iyo react waxaad u baxsatay hadba marka for now waxaa dhihi doonaa folderkii aad tegi doonaa si aan project ugu arag waxaa dhihi doonaa cd my app cd waxaa waa change directory had documents joognaa hadhowda depending waxay ku xirnaan doontaa meesha markaas aad taagan tahay so enter dheh for now waxaa ku jirnaa my app so my app marka waxaan rabnaa project inaan ku furno maxaa ku rahdaa inaan ku furno Visual Studio Code dhowr anna sameyn kartaa waxaa dhihi kartaa code dot aad dhihi kartaa code dot markaa dhacdo automatically wuxuu ku furi doonaa Visual Studio Code ayuu kugu furi doonaa application-kaaga ama project-kaaga oo dhameystiran folderadii iyo fileska uu watay oo is wataan for now meesha haddaa fiiriso why you do this I don't know sorry sorry about that my react yalla sorry waxaa dhihi doontaa cd alright so waxaa dhihi doontaa cd folderkan magaciisa sheegi doontaa waxaa dhihi doontaa cd my react so my react ku dhex jirta
waxaa sameyn kartaa marka in folderkaaga dhex tagto tusaale had for now documents ku jira. Let me grab that. So meesha aan hada ku install gareeyay waa documents scan labadan folder ku jirto for now my app iyo my React. So my React waxaa sameyn kartaa inaad soo jiido oo aad ku dhex furto Visual Studio Code sidaan aad sameyn kartaa folder workspace kan sameey ama inta iska kansasho dan save ah dhigi kartaa code dot adesa code dot marka dhacdo automatic wuxuu sameyn doonaa Visual Studio Code ku furi doonaa haddii in case uu ka diido code dot inaad ku run garayso application-ka waxaa sameynaysaa command shift B adesa your meeshan command shift B marka wuxuu raadinaa waa CLG loogu talagalay advanced ah codekii wixii aad ku raadiso marka waxaad raadinaysaa shell command kan ugu horeeya waa codekan install marka for now markaas saas aado automatic inaad already waa install garaysan yahay midkaas install lehay waxaa ku fududaanaya marka in folder walba aad taagan tahay aad ku furto code dot inaad dhahdo oo automatic uu kuu furo Visual Studio Code. Alright, so aan marka weyneeyo here's the magic and as cancel doona for now kan aan soo dhaweeyo labid saaw aragno cool. Meesha marka waa folderkii ama fileskii ayno install gareeyay commandgii aan haday dalbanay oo ahaa create React app wuxuu sameeyay marka koowaad node modules folders kana waa inaad fahantaan waxa uu ku saabsan yahay node modules kan waxaa ku jiro everything oo package ah aan isticmaali doono soo ujeedid waxaan tirada ka bateen waa wax uu ku shaqeeyo behind the scenes for now ma taaban doono wax ku dhex jiro ana xataa ma sheegi karo all that stuff waxay qabanayaan laakiin waxaa ku jiro every package oo aan isticmaali doono oo React isticmaali doonto behind the scenes. Folder kan public waxaa ku jiro fileshi maadaama React ay tahay single page application waxaa laga wadaa wuxuu dhan waxaa lagu render gareyn doonaa hal page halkaas page waa index.html kan waayo waxa file oo React aad u jeedo dhan ama projectiga oo Facebook saas u weyn aad arkaysid wuxuu ka soo kici doonaa halkan filekan ayaa lagu soo inject gareyn doonaa waxaan isticmaali doonaa waxyaalo components la yiraahdo later on u gali doonaa. Alright, publican marka waxaa ku dhex jiro 5 icon-ka kore aan arki doono for now waa calaamada icon-ka kore oo marka website-ka ku jirto ku soo baxayso iyo sidoo kale file-kii hadda aan ka hadlaynay index.html waa file-ka kaliya ee React ay aqoonsan tahay inta kale waxay noqon doonaan components iyo waxyaalahaas kuwana logooyinkii React manifest.json kana waxaa ku jiro settings waxaan isticmaali doonaa hadhow markaan billiga sameynayno ayaan arki doonaa for now laakiin waan kasii soconaynaa markii bill la dhaano loogadeena iyo waxaan ku bedelanay application-keena magaciisa iyo waxyaalahaas for now React aba ku qoran sidiisaas ka hada wax dhib malaha for now kan agentiga waxaas alaa leeyahay for now ma baahni sidoo kale folder kale muhiimka aan ku shaqeyn doono waa source folder src gan waxaa ku jiro everything oo page-ka hadda ka muuqda haday ahaan lahayd CSS-kii oo global CSS-kii oo page-ka uu yahay sidoo kale application-kii ama main component-kii waxaan ka soo baxayeen test-ya loogu talagalay kan in loo isticmaalo for now ma baahni iyo mid kale oo asigan CSS ah file oo CSS waa style loogu talagalay also index.js waa page oo wadnaha u ah marka laga soo tago index.html page-kan html-ka ah marka laga soo tago page-kana lagu soo render gareynayaa saa ujeedid meeshaan lagu soo so waxaan focus saarin dhammaan fileshan oo tiri doona from scratch ayaan kasoo bilaabi doonaa laakiin inaa fahantaan hal mar laga yaabay markood inaan ku dhex wareerto fileshan waxay yihiin marka too much waqti ayaa la gelin just bas waxaan rabaa inaan isla fahano. Alright, so git ignore waxaa loogu talagalay GitHub iyo markaa saareen later on markaan deployment ku sameynayno application-ka ayaa arki doonaa sida deployment iyo waxa la soo qabanayo waxaan rajeynayaa at least in basic knowledge of GitHub inaad taqaanaan laakiin insha Allah very soon waxaan soo geli doonaa 10 oo crash course oo ku saabsan Git sida loo isticmaalo sida loo upload gareeyo waxaan sharxi doonaa markii project-kan aan dhameeyno oo aan ku deploy gareynayno Netlify iyo meel aan markaas ku sameyn karno. Fileasha kale muhiimka waxaa kamid ah package.json kan waxaa ku jiro dependency aan ku sheegayay oo node modules kan aan ka hadlayay meeshaan ay ku wada jiraan oo ah libraries ka ama dependency markaas la isticmaalo waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa kamid ah React oo aan mid hadda aan sameynayno calaamada waxay dhigan tahay continuously waa macnaha
sidoo kale waxaan isticmaalayna react dom, react scripts iyo web vitals oo asigana testing iyo waxyaalahaas loogu talagalay for now, laakiin waxaan isticmaali doonaa labadaana aad aan noo khuseeyo haddaan ujeednaa oo ay kamid tahay react domkan waa document object modelkii dhan isticmaalkiisa waay. Alright, ilan react hadda maadaama ay tahay front end library oo front endiga ay ka shaqeynayso inta badan document yaan la isticmaali doono, marka dependency yaan anaga saaciidi doono. Alright, qaybta hoose marka scriptska hadda aan ka hadlaya waa kan. Scriptiga maxay yihiin marka? Scriptyada waxaa loogu talagalay in aad ku shaqeyso inta development-ga uu socdo, inta build-ga uu socdo iyo waxyaalo noocaas ama testing markaad sameynayso. For now kan oo kale waxaa loogu talagalay inaad start dhahdo, tusaale markaad project-yan kicinaysid ama run aad dhehaysid si uu kaga soo baxo browser-ka, waxaa isticmaali doontaa calaamadda ama kelimadan start-ga isticmaali doontaa. For now waa aan tijaabinayna marka koowaad, marka build-ga la sameynayo iyo marka test aad sameynaysid. intaas hadda uu muhiimsan waxyaalaha anaga hadda aan rabno. For now intaan kale focus ma saareyno, waxaan anaga hadda u baahanahay maahan. Si application-ka marka run aan ugu sameyno, waxaan sameyn doonaa, waxaan tagi doonaa terminal-keena. meesha waxaan dhihi doontaa let's say terminal, new terminal aan dhihi doontaa. Alright, great. folderkii wuxuu ku jiraa my react sa ujeedidkan. Si marka aan run u dhahno waxaan leenahay npm start. ilaa hadaayi waxaa idin sheegay in meeshan scriptgan start loogu talagalay in application development-ga lagu sameeyo. npm start marka dhahdo at time wuxuu sameyn doonaa, wuxuu ku abuuri doonaa local environment oo aad ku kicin doonto. So yes, here we go. So now I'm fiirino. Congratulations, great. waxaan aragnay ama noo soo baxay application-kan ugu horeeya ee react oo running ah. saa ujeedid shaashadan landing page-kan noo soo bixi doono marka ugu horeyso oo react aad develop gareyso. So meeshaan 3000 inay ku noqotaa laga yaabo adiga. furna aniga application kala behind scenes run ah. So meeshaan waxba ku mashquulin, local host marka 3000 ayna ku noqonaysaa marka ugu horeyso maadaama ay tahay. Alright, so next lecture marka waxaan galaynaa sameynta ama furfurista application-ka oo aan ku sameyn doono waxyaalo aan fahansanahay. file-kan src wax ku jiro dhan hawada ku cuni doonaa insha Allah, laakiin next lecture u gali doonaa. Bye for now.